इंडिया मेरी शान इंडिया प्राण इंडिया मेरी जान इंडिया जय हो इंडिया I love my India अतुल्य इंडिया I love my India जय हो इंडिया I love my India अतुल्य इंडिया I love my India Hrithik Sulaweshadiisa bandhigyo cajiib ah ayuu la imid wuxuuna ka soo muuqday filimkii Kirish waxa uu ka qayb ahaa filimkii labaad ee qiyaaliga ah Kohimilkaya sanadkii 2006 wuxuu la imid doorka ninka cajiibka isagoo qaatay abaalmarino dhowr ah sida xidiga shaashada iyo waliba kana akademikada filimka Hindiya dhamaadkii sanadkaasi ayuu wuxuu keenay filimka Dom 2 isagoo ahaa qaybtii labaad filimka Dom kaasi oo sameeyay guulo balaaran sanadkii 2008 wuxuu ka soo muuqday filimka Tariikhda weyn sameeyay waana filimka Juda Akbar kaasi oo ay la jileysay gabadha ugu indhaha qurux Hindiya Aishwarya Rai wuxuu sameeyay in uu matalo shakhsiyadda imbaradorka caalamka Jalaaluddin Akbar kaasoo xukuma Hindiya isla markaana mideeya shacabkeeda wuxuuna filimkaasi ka mid ahaa mid dhaqaale ahaan guuleysta gudaha iyo dibaddaba wuxuuna ku qaatay abaalmarino cajiib ah sidoo kale abaalmarintiisa ugu horeysay ee caalamiga mimbarka dahabiga ee mahrajaanka si uu u noqdo jilaaga ugu fiican Bollywoodka जो भी कहना ना था वो भी कहने लगे जो भी सुनना ना था वो भी सुनने लगे जो भी कहना ना था वो भी कहने लगे जो भी सुनना ना था वो भी सुनने लगे आ रही है हंसी मुझको इस बात का किस तरह प्यार में दोनों खोने लगे sanadkii 2010 wuxuu sameeyay horumar weyn wuxuu keenay filimkiisa caalamiga ah ee lagu magacaabo Qeebta iyadoo ka qayb ahayd isla markaana ay la jileysay xidigta reer Mexico Barbara Moli boqoradii hore quruxda dalka Mexico kadib wuxuu guulo balaaran ka sameeyay aflaamo kala duwan asigoo ka qayb ahaa filimka Kirish taasi oo ku matalayay doorka saaxirka jirkiisa oo idil shar laga sameeyay isla markaana u dagaalamaya sidii uu xaqiisa u heli lahaa filimkaasi waxa uu ahaa midkii ugu fiicnaa oo jilo wuxuu guursaday Susan Roshan Khan oo ah gabar sameysa disaanka dakoorka waxay u dhashay tiro caruur ah iyagoo isguursaday bilowgii caanimadiisa 2000 nasiib daro waxay kala tageen sanadkii 2014 sababta furiinka iyo waxa lagu sheegay in ay ka qayb ahayd kadib markii ay ka qayb noqotay noloshiisa isla markaana ay ku soo biirtay Barbara Moli taasi oo la aaminsan yahay in kiimika xoogan ay ka dhaxayso waana waxa keenay in ay maseerto guriga ka tagto isla markaana ay tagto hotel laakiin lamaanayaashan ayaa go'aansaday in ay isku soo laabtaan misna noloshooda fursad ay siiyaan carruurtooda dartooda Hrithik wuxuu ka mid yahay aktarada ugu qurux ee dalka Indiga dhibaan ayay ahayd wuxuuna ku guuleystay aktarka ugu qurux ee abaalmarinta ee bixiso shirkadda Bollywoodka waxaana lagu tiriyaa kan ugu naxariista badan gudaha aktarada sanadkii 2017 ayay ahayd wuxuuna sheegay in haddii uu geeriyoodo uu indhihiisa ugu deeqay dadka aanan wax arkin isla markaana laga saxiixay in indhihiisa uu u hibeeyay camoolayaasha haddii uu geeriyoodo wuxuuna ka mid yahay midka ugu naxariista badan shirkadda Bollywoodka ee dalka India
इंडिया मेरी शान इंडिया, प्राण इंडिया मेरी जान इंडिया। जय हो इंडिया, आई लव माय इंडिया, अतुल्य इंडिया, आई लव माय इंडिया। जय हो इंडिया, आई लव माय इंडिया, अतुल्य इंडिया।